daaqadii rajada ee daboolka la saaray markaad dadaashid si aad u dadaashid adigoo damacsan hirgelinta riyadaadii carruurnimada kuna haminaya sidii aad dalkaaga iyo dadkaaga wax u tari lahayd daqiiqado kooban adigoo ku jira yoolkii kuu degsanaa sidee ayuu noqon dareenkaagu markaad garowsatid in lagaa daboolay daaqadii rajada لحية ديسمبر 2015 أبريل 3 لوليو 25 جون iyo 9 أغسطس 2016 وتشييدii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa hanaanka doorasho ee 2016 iyo kulamadii isxigay ee madasha hoggaanka qaranku yeesheen waxay go'aamiyeen hanaan doorasho oo lagu xaqiijinayo inay 2016 dhacdo taas oo ah doorasho dadban oo si fiican looga qayb galay marka loo eego doorashadii 2012 iyo si loo gaaro doorasho qof iyo cod sanada 2020 doorashooyinka baarlamaanka federaalka Soomaaliya markii la sheegay inay noqon doonto doorasho dadban mid ergooyin codayaal ay dooran doonaan rajo ayaa dadka jirtay soo gashay haddaba markii ay bilowdeen doorashooyinka dadban ee kuraasta aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa la sheegay inay hareeyeen eedo musuqmaasuq lacaga tiro badan oo lagu kala gatay ergooyinka codaynaya xubno musharaxiin ah oo laga reebay liiska musharaxiinta sabab la'aan cunsurka go'aaminaya doorashadan waxaa ka muuqda in uu yahay boorsada inay tahay lacagta inay tahay arrinta noocaasna waa corruptionkii ugu xumaa oo ka dhaca Puntland xishood aan lahayn aan lala gabanayn aan sir ahayn habeen aan ahayn maalin cad in lacagtii iyo gorgortanku socdaan arkaysa war-saxaafadeed ay si wada jir u soo saareen qaramada midoobay midowga Afrika midowga Yurub urgoboleedka IGAD Ethiopia Talyaaniga iyo Suudaan iyo boqortooyada Ingiriiska iyo dawladda Mareykanka ayay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin eedeymaha joogtada ee ku saabsan musuqmaasuq lagu hayo geedi socodka doorasho ee Soomaaliya iyo warbixinaha ku saabsan cabsigelin soo noqnoqotay oo ay la kulmayeen musharaxiinta quurdareynaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka Soomaaliya ergada doorashada iyo eedo loo jeedinayo saraakiisha doorashada guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa dib u celiyay natiijada 11 xildhibaan oo lagu doortay magaalooyinka Garowe, Kismaayo, Jowhar iyo Cadaado iyagoo go'aamiyay in kuraastaas dib loogu laabto dumarka ayaa lagu heshiiyay in 30% ay helaan kuraasta baarlamaanka balse caqabado badan ayaa ku yimid inay galaan tartan furan dastuurka waqtigiisii dhamaaday qodobka 11aad iyo qodobka 22aad wuxuu qeexayaa rag iyo dumarba inay u siman yihiin doorasho ay tartami karaan haweenku dalkan iyagaana badbaadiyay runtii gabdhuhu dalka waa uga maslaxad jecel yihiin rag waa ka wadasan yihiin waa ka naxariis badan yihiin musuqa marka la yiraahdo waa ka musuq yar yihiin waxaa lagu heshiiyay tartan furan oo xor ah in la galo ujeedadaas waxaad moodaa inaan la xaqiijin aan la fahmin ama haddii la fahmay xitaa aan la ilaalin ujeedadaas dadka dhibanaha u ah waxaa ka mid ah arrintaas ambasador Sureer Abshir oo u tartamaysay xildhibaannimada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya haddii lagu yiraahdo maba tartami kadib waxaa u malayn maayo wax xaqdarro ka weyn inay jidho annagu soo dadkii doorashada la doonayay baan xildhibaanka la raadinayay baan ka mid ahay annagu islaamka baan u gudbinay nabadoonnada wax tala lagama weydiin haba yaraatee iyagoo lahaa saxiixa koowaad inay iyagu wax soo xulaan haba yaraatee hal qof oo nabadoonna wax lama weydiin islaamkii marka cid kale soo ku talabaxay ayuu xilkiisii ilay qofta aanu u gudbinayna kuma uusan soo dalin tartarkii oo xisaabta uu ka reebay marka waxay ahayd arrin bareera ah anaa siiyey anaana go'aansaday anaana iri mana laga hadli karo taasaa dhacday xitaa ma sharaxnayn ma tartamin taas marka waxa way ayaan daro marka waa laga heeyay iyadoo aan la dhihin
tartankiina aan naga ogolaan ayaa islaamkii bixiyey islaamkii sultaankii baa bixiyey annaga gabar naguma soo aadi karto waxaa mataa gabadhaba inay ku tahay boog ama ceeb inay qof muwaadina oo ninka ula siman matalaadda dadka ma moodid maba la aaminsanaba dhinacyo badan ayaa lagu eedeynaya inay qayb ka yihiin inay haweenka ka hor istaageen inay ka qayb galaan tartanka odayaasha waxaa arkaysa leeyahay haddii gabadhi ka soo baxdo beri waxaa la odhan doonaa yaa joogay oday hebel baa joogay naga ilaaliya in yani in halkaasay maraysaa taas waxay burburinaysaa sharcigii bay ka hor imaanaysaa waxay ka hor imaanaysaa heshiiskii waxay ka hor imaanaysaa qoondooyinkii haweenka intaasoo dhan bay ka hor imaanaysaa waajibaadka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka waxaa ka mid ahaa inuu eego tixgeliyana cabashada musharaxiintu soo gudbiyaan guddiga doorashooyinku musuqmaasuqa qayb bay ka yihiin odayaashii oo jooga dadkii ay soo xuleen ergada ahayd kaararkii cunnada qaateen la sawiray baa sawirkoodii dad kale ay ku galeen oo codkii uu ku baxay iyagana waxaa lagu yidhi lacag xoogaaya ama rashwo abaa layna siinayaa codeeya sidaasayna ku codeeyeen xaqna ma aha in qof musharaxa oo aan cid la tartamaysa aysan jirin in cod intii loo tiriyo la dhoo codka noocaas ku guulaystay guddiga doorashada waxaan la shirnay ugu yaraan 3 jeer annagoo la socona nabadoonnadayada waxaa loo sharaxay sharci darrada arrintan ay ku socoto qolada guddiga ahayd oo mataqaanay wax qabanaysan u dacwoonay dacwada u geynay ku khilaafaadka u gudbinay jawaabna ku socodeen ma jirto wixii waa la iska gudbiyay waxaan maqlin baa la doortay guddigii doorashooyinka markay wax qaban waayeen waxaan u gudbinay cabashadayadii guddigii federaalka xataa lagama fariisan markaan helay guddigii doorashooyinka oo heer federaal waxaan ila warqadda iyo cabashadayadii ma ka doodeen maba aanan helin bay dhaheen maba u dhibaysa qofkii baa qarinaya marka gabar Soomaaliyeed oo runtii aqoon iyo karti iyo qiimo dalkeeda ku dhexleh waxaan arkaa wax fool xun inay tahay in gabi ahaanba loo diido inay ama xil qabato ama si kale siyaasadda dalka uga qayb qaadato sababtoo ah haweenku waa waxa ugu muhiimsan ee nolosha qoyska sababtaasna waa markay qoyskii dhiseen oo qoyskii kaalin barakeynayna inay qaran kala dhisaan marka taa waxaan arkaa inay tahay dhib weyn oo gabadha shakhsiyadeedkeeda loo geysanayo guud ahaan dumarka Soomaaliyeed loo geysanayo doorashooyinka dadban oo u dhaca hufnaan iyo cadaalad waxay ahayd daaqaddii rajada dadku ay ka eegayeen suurtagalnimada doorasho shacabku ay go'aamiyaan ciddii hoggaamin lahayd hal qof iyo hal cod waxay ahayd rajo mustaqbal wanaagsan oo la wada sugayay shacabka Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku kala dhaqan ayaan weydiinay 3 su'aalood waxaana u marinay su'aalahan baraha bulshada sidee u aragtaa doorashooyinka xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee lagu qabtay xarumaha maamulada Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho ma waxay u dhacday qaab musuqmaasuq ka buuxay mise musuqmaasuq iyo cadaalad isku jiray mise waxay u dhacday qaab cadaalad iyo hufnaan ah waxaa ka soo falceliyey su'aalahan 6,000 oo qof oo dunida dacaladeeda ku kala nool waxaa u codeeyey dad gaaraya 60% waxay u codeeyeen in doorashadu u dhacday qaab musuqmaasuq oo xadka dhaafay waxa uu codeeyey 35% waxay u codeeyeen inay u dhacday qaab musuqmaasuq iyo cadaalad isku jiray waxa uu codeeyey 5% waxayna u codeeyeen inay u dhacday si cadaalad iyo hufnaan ahayd qaramada midoobay waxay door muhiima ku lahayd geedi socodka doorashada Soomaaliya ma qaadin tallaabooyin ku filan oo wax looga qaban karay khaladaadkii ka dhacay doorashada arrintaasi waxay sababi kartaa in dadka Soomaaliyeed ka aamin baxaan mar walba qaramada midoobay waxay muhiimad siinaysay in doorashadu ku dhacdo waqtigii ay qorshaysay halkii muhiimadda ay siin lahayd in xildhibaanadu ku soo baxaan xalaal hufnaan iyo cadaalad